khabiirka kubadda cagta BBC-da oo saadaaliyay kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League Nigeria iyo DR Congo oo iska xaadiriyay semifinalaha koobka qaramada qaaradda Afrika. Haddaba ay ku beegmi karaan muuqaalkan ayaa kugula wadaagi doona ay soo dhawaada waday balse marka hore waxaa ka codsanaya Alexander muuqaalka oo sii share kare si uu saaxiibo badan u gaaro haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biro follow dhaho boga Salman Al-Adala si aad u hesho warbixinada ciyaaraha kubadda cagta. Haddii aad igala socoto bartida TikTok-kana waxaa ka codsanaya inaad igu soo biirto oo follow dhahdo sidoo kalena aad ii daawato tiro 3 jeer calaamada goob link-ka maasanid. horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan la ciyaaraya kulamadiisa 23aad iyadoo Liverpool ay 5 dhibcood ku hayso hogaanka horyaalka Premier League isla markaana Manchester City iyo Arsenal ay isku dhibco yihiin oo mid walba kambarkaaban ugu fadhido sidii ay ugu dalici lahayd xagga sare haddii ay kufto kooxda tababare Jurgen Klopp. toddobaadkan waxaa is wajahaya kooxaha Arsenal waxaana habeen dambe oo xadda garoonka Emirates Stadium uu martigelin doonaa ciyaar si weyn loo sugayo waana Arsenal iyo Liverpool kulanka dhex maraya. labadii ciyaarood ee ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League Liverpool iyo Arsenal waxay ku dhamaadeen barbaro halka labadii kulan ay ka sii horeeyna ay labada kooxood mid walba ay guuleysatay laakiin ciyaartoodii ugu dambeysay oo 7 January ay ku kulmeen tartanka FA Cup-ha waxaa 2-0 ku soo adkaatay Liverpool oo waliba ku sugnayd garoonka Emirates Stadium. khabiirka kubadda cagta BBC-da Gary Sutton oo saadaaliyay kulankan ayaa waxa uu kula wareejiyay Arsenal oo uu sheegay inay 2 gool ku qaraaci doonto Liverpool taas oo haddii ay dhacdo ka dhignaan doonta in kooxda tababare Klopp loo soo jirsan doono 2 dhibcood oo kaliya. waxaa kale oo khabiirka BBC Sport guulo u saadaaliyay Manchester United iyo Manchester City balse waxa uu niyad jabiyay Chelsea oo uu sheegay inay dhibcaha wadaagi doonaan naadiga Wolves. saadaasha kulamada 23aad ee Premier League ay Gary Sutton oo dhameystiran waa Sabti kulamada la ciyaarayo Everton iyo Tottenham kulankooda waxa uu ku saadaaliyay 2 gool Brighton 2 Crystal Palace 1 Burnley iyo Fulham barbaro 1-1 Newcastle 3 gool ay u rajay inay ka gaari doonto naadiga Luton. Sheffield United-na waxa uu 2 gool guultaraha uga saadaaliyay kooxda Aston Villa oo ay la ciyaari doonto. kulamada axadda waxa uu ku saadaaliyay Bournemouth 2 Nottingham Forest 1 Chelsea iyo Wolves kulankooda 1-1 ayuu ku saadaaliyay. Man United-na 1 waxba ayuu saadaaliyay inay kaga adkaanayso naadiga West Ham United. Arsenal iyo Liverpool kulankooda waxa uu 2 gool u saadaaliyay naadiga Arsenal. kulanka Isniinta ee dhaxmaraya Brentford iyo Manchester City-na waxa uu 3 gool guulaha u rajeeyay naadiga Manchester City. dhanka kale xulka qaranka Nigeria ayaa noqday dalkii koowaad ee u soo baxay wareegga semifinalka koobka qaramada qaaradda Afrika kadib markii guul cariiri ay ka gaareen xulka Angola oo ay gool madi ah kaga taqaluseen iyagoo kuushaana ku waayay horyaankooda Victor Osimhen oo kaga dhaawacmay ciyaartaasi. Nigeria ayaa waxa ku sheeday go'aamiye Lukman oo ah dhaliyahooda iyo hogaamiyahooda dhabta ah ee sababtu u ahaa labadii guulood ee ugu dambeeyay oo ay kaga soo gudbeen wareegga 16 iyo 8 isaga oo labadaas ciyaarood ku dhaliyay 3 gool. dhamaadka qaybta hore oo 4 daqiiqadood ay gaarsan yihiin ayuu Lukman shabaq ku hubsaday kubad uu ka helay Moses Simon inkastoo xulka Angola uu nasiib ku diiday waxaana ciyaartu ku soo dhamaatay gool waxba oo ay guusha ku raacday Nigeria waxaana ka dhaawacmay laacibkooda Victor Osimhen. xulka qaranka Nigeria ayaa waxa uu semifinal la ciyaari doona Cape Verde iyo South Africa oo caawa wada ciyaaraya midkii soo gudba. dhinaca kale mucjisada laga baqayo ee sanadkan tartanka ayaa waxa noqday xulka qaranka DR Congo oo hore u soo reebay Masar oo ay wareegii 16 ay ku soconeen haddana waxa ay wadada ku rideen Kenya oo kamid ah dalalka xoogan ee ku hubeysan xidigaha waaweyn sida Naby Keita iyo Kuyurasi. DR Congo ayaa waxay 3 gool ku qaraacday Kenya oo gool kala hormartay ciyaarta oo socday 20 daqiiqadood taas oo ay ugu bedeleen 3 gool oo ay kala qaybsadeen Mbama, Yan Wissa iyo Masuako. wareegga semifinalka waxaa DR Congo ay ku sugayaan xulka martigelinaya tartanka ee Ivory Coast iyo Mali oo is wada arkaya midkii soo baxa labadaasi xul. tartanka ayaa sanadkan xiise gaar ah leh maadaama ay hareen wadamadii loo saadaalinayay.